maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo maalmaha soo aadan ayuu muqdisho imaan doonaa waxa uuna ku dhaqaaqi doonaa socdaal dhinaca dhulka ah xagee ayuu ku wajahan yahay muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa aragtidiina qaybta hoose commentiga kaga soo dhiibta muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiina oo meel fog gaarsiiya waxaana yuusuf maxamed axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira saaxiibada igu xiran page-kayga iyo barta YouTube-kayga la socda madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa toddobaadkan gudihiisa qorshuhu yahay in caasimadda muqdisho uu soo gaaro farmaajo ayaa marka uu muqdisho soo gaaro waxa uu kaga gudbi doonaa dhinaca Garowe halkaas oo ay uga bilaaban doonto socdaal dhinaca dhulka ah oo uu ku tagi doono deegaanada SSC Qaatuma waxaana qorshaha uu yahay in maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo magaalooyin iyo degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan SSC uu dadka kula kulmo halkaasna waxa uu u gaarayaa ballanqaad kol hore uu u sameeyay dadka SSC oo ah in mar uu booqan doono madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa gabi ahaanba diiday abaabulka munaasabado waaweyn oo isaga lagu soo dhaweyn lahaa oo ka dhici lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya farmaajo ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray qorshahaasi waxa uuna sheegay in hadafkiisu ugu weyn uu yahay in deegaanada SSC uu booqdo isla markaana waxa uu dib ugu soo laaban doonaa caasimadda muqdisho booqashooyinkaasi marka uu soo dhameeyo magaalooyinka SSC waxa iminkan ka soconaya uu diyaar garowga soo dhaweynta maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya SSC Qaatume ee ku meel gaarka ayaa hogaankooda waxa ay magacaabeen guddi gaar ah oo ka shaqeyn doono soo dhaweynta maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa SSC booqashadiisa waxa ay noqon doontaa markii ugu horeysay SSC waxa kol hore sidan oo kale u booqday mas'uuliyiin Soomaaliyeed iyadoo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee tan iyo burburkii dalka taga deegaanada SSC ilaa dhamaadka muuqaalka haddii aad ila soo gaarto waa kaga mahad celinaya nabadgelyo